dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka soo kabanaya abaar baaxad leh oo ku dhufatay muddooyinkii u dambeeyay. Xukuumadda talada haysa ayaa gurmad bini'aadanimo ka geysatay sidii dadka wax loogu qaban lahaa. Hay'adda samafalka Geeska Afrika ayaa si mug leh uga qayb qaadatay gurmadka bini'aadanimo ee lagu samata bixinayo dadka reer Somaliland ee abaartu ay ku dhacday. Madaxa mashaariicda hay'adda Geeska Afrika Cabdiraxmaan Aadan Cige ayaa sharaxay gurmadka ay hay'adahan ka fidiyeen deegaanada ay abaartu ku dhufatay. kamid hay'adda samafalka Geeska Afrika hay'adihii baaqa ka soo baxay jamhuuriyadda Somaliland ka jawaabay kana qayb qaatay gurmadka dadka iyadoo hay'adda horeba ay uga qayb qaadan jirtay gargaarka iyo gurmadka dadka haddana sanadkan runtii si fiican ay uga jawaabtay baaqaas oo uga qayb qaadatay iyadoo gargaar fara badan ku qaybisay gobolada Somaliland gobolka Salel Awdal Nihawd Maroodi Jeex Togdheer oo dhammaan degmooyinkooda oo dhan aanu gaarsiinay Sanaag waxaan ugu talagalnay dadka dhibaataysan saddex marxaladood. marxaladda koowaad oo ahayd dadka in la gaarsiiyo gurmad degdega oo ah cuntadii markaa loo baahnaa iyo marxaladda labaad aan ugu talagalnay haddii Ilaahay qadaro oo inoo fududaato inaan dadkii xoolaha ay ka bixin la xooleeyo iyo ta saddexaad oo ah dadka in loo sameeyo biyo xidheenno biyaha loogu joojinayo waynu aragnay runtii biyahana dhaafaya ee mawjadaha ah ee haddana ma garanaysaa laba cisho kadib amba usbuuc kadib aynu ka haraadanayn ka oomanahay. waxaa loo baahan yahay runtii oo xukuumadda looga baahan yahay inay ku tala gasho biyaha si loo joojin lahaa iyo hay'adaha khayriga ah wadanka jooga intuba inay dadka xoolaha ka baxeen inay isku dayaan inay xooleeyaan oo arigii baxay dib loogu iibiyo way waxay nolosheena iyo ganacsigeena iyo dhaqaaqeenuba waxaan ku xiranay runtii waa xoolaha waa mastarka koowaad ee dhaqaalaha wadankeenu waa xoolaha weeye marka in dadka la xooleeyo dadkii xoolaha ka baxeen in iyadoo runtii la eegayo gobolada oo ay sidoo kale dhibaato badnaayeen iyo dadku si xoolo u kala baxeen in magaranaysa dadka la xooleeyo.